Musalsalka Ishqi Meen Marjavan 2 oo la joojinayo kadib atooraha Vinesh oo laga helay coronavirus. Ishqi Meen Marjavan waa mid ka mid ah taxanayaasha lagu jecel yahay waqtigan ee Hindiya laga leeyahay waxaana laga sameeyay qaybtii labaad ama season 2 oo haddeer meel xiiso leh marayo. Balse kooxda filimkan waxay ku qabsadeen in la joojiyo taxanahan sabab la xiriirto goobta shaqada oo coronavirus ku faafay. Kooxdan waxay go'aansadeen in la kala diro shaqaalaha. Atooraha musalsalkan hogaaminaya Rahul oo doorka Vinesh ku jilayo taxanahan ayaa laga helay caabuqa. Guriga ayuu haddeer karantiil ku yahay isagoo ka fogaaday qoyskiisa. Sidoo kale atriishada Redmi ee magaceedu yahay Hilki Sheikh ayaa iyadana iska baartay caabuqa. Nasiib wanaag waa laga waayay oo negative ayay noqotay. Waxayna ka hadashay muuqaalka xalqada ay boorsada dhex galayso biyahana ku dhex dhacayso iyadoo boorsada ku dhex jirto. Wuxuu ahaa muuqaal halis badan maadaama gabadhan boorso dhex gashay. Sidee ku dhex gashay ayaa lala yaabanay oo hadal haynta baraha bulshada ka dhalisay. Sidoo kale waxay sheegtay in 45 daqiiqo ay boorsada ku dhex jirtay inta muuqaalkaas duubistiisa socotay oo hadba mar intuu halaabo dib loo sameynayay muuqaalka. Waxaa la filayaa in goor dhow dib loo bilaabi doono taxanahan waa haddii kooxdu caafimaadaan inta uu ku dhacay caabuqa sida atooraha Vinesh. Sidoo kale la ogaado in la xakameyn karo koronahan oo zaa'id u faafooyo.